guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland oo ah hay'adda ugu sarreysa ee dowladda Puntland u qaabilsan qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka, diiwaangelinta ururada siyaasadda, ansixinta iyo sharciyeynta xisbiyada siyaasadda ayaa si guul ah kusoo gabagabeeyay shaqadii loo magacaabay 17 August 2019 isla mar ahaantaana loo dhaariyay xilkaas 19 August isla sanadka. baarlamaanka Puntland cod aqlabiyada uu ku ansixiyay 16 November 2019. haddaba aanu dib u eegno shaqadii baaxadda lahayd ee guddigu uu soo qabtay muddadii uu xafiiska joogay iyo guulihii uu soo hoyay ee gudaha dalka iyo guud ahaan caalamkaba lagu bogaadiyay. guddigan oo ka koobnaa 9 xubnood ayaa shaqadoodii ugu horeysay ka bilaabay shirar iyo kulamo qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland ay la yeeshaan, iyagoo safaf dheer ku tagay deegaanada, tuulooyinka, degmooyinka iyo gobolada Puntland si ay u diyaariyaan wajigii koowaad ee doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland oo qorshihii ugu horeeyay guddigu gacantaag uu ku ansixiyay 4 December 2019, iyagoo ka duulaya afkaartii kala duwanaa ee ka soo ururiyeen qaybihii kala duwanaa ee bulshada ay la kulmeen iyo caqabadihii ay la kulmeen guddiyadii iyaga ka horeeyay oo iyaguna kulamadaasi qayb ka ahaa. guddiga ayaa 15 December 2019 waxa uu shaaciyay qabashada araajida diiwaangelinta ururada siyaasadda oo martay 3 wareeg oo lagu hubinayay in ay buuxiyeen shuruudaha laga doonayo. ugu dambeynna waxaa ku soo baxay 10 urur siyaasadeed oo 2 ka mid ah markii dambe ay isku biireen. shahaadasiinta ururada siyaasadda kadib, guddigu waxa ay bilaabeen hirgelinta qorshihii guddiga oo isugu jiray kor u qaadida fahamka bulshada ee hanaanka xisbiyada badan ee Puntland, dejinta xeerar iyo habraacyo cusub. sidoo kale waxay dib uga isku sameeyeen xeerarkii horey u diyaarsanaa, iyagoo oo dejiyay kuwa cusub oo lafdhabar u noqday doorashadii, keenida qalabka casriga ah ee doorashada qaybtiisii koowaad, iyadoo oo doorashada golayaasha deegaanka hordhac iyo ibfurba looga dhigay doorashadii hordhac ahayd ee laga qabtay 3 degmo ee Eyl, Qarle iyo Ufayn oo guddigu ay ugu talagaleen in iyaguna cashar ka bartaan maadaama ay qabanayaan doorashadii ugu horeysay ee qof iyo cod ee Puntland ka dhacda. qabashadii doorashadaasi waxay ahayd mid taariikhi ah. 56 sano kadib, TPEG waxay xaqiijisay Puntland iyo guud ahaan Soomaaliyaba inay ka qabsoomi karaan doorasho qof iyo cod, waxaana dowladda iyo shacabka Puntland, Soomaaliya guud ahaan, caalamka iyo cid walba oo hanaankan taageeraysay ay tuseen in dadweynuhu barnaamijkan u hamuun qabo, rabitaankooduna uu marayo meeshii ugu sarreysay. 5 January 2020 guddoomiyihii hore ee guddiga Guuleed Saalax Barre ayaa xilka guddoomiyaha guddiga ku wareejiyay Cabdirasaaq Axmed Saciid oo si habsami leh u ambaqaaday dardargelinta shaqooyinka cuslaa ee guddiga horyeelay, waxaana ay bilaabeen dejinta qorshaha wejiga labaad ee doorashada golayaasha deegaanka dowladda Puntland oo ahayd mid ka culus kana baaxad weyneyd tii hordhaca ahayd ee 3 degmo, iyagoo ka cabir qaadanayay casharadii ay ka barteen 25 Oktoobar 2021, waxaana qorshahaasi oo dhammaystiran bulshada ay u soo bandhigeen 26 May 2022. guddiga ayaa qorshahooda ka bilaabay kor u qaadida aqoonta shaqaalaha, iyaga oo tababaro kala duwan ugu qabtay gudaha iyo dibadda qaybaha kala duwan ee shaqaalaha guddiga, heer degmo, mid gobol iyo xarunta dhexe, waxaana ay ku xijiyeen kor u qaadida fahamka bulshada, iyadoo markii ugu horeysay sameeyay xarunta wacyigelinta dadweynaha oo ah xarun ay bulshadu si toos ah ula soo xiriirayeen si ay uga helaan jawaabaha su'aalaha maankooda ka guuxayay, isla mar ahaantana lagu ogeysiinayay bulshada guud ahaan hadba halka ay marayso shaqada guddigu. waxaa kale oo ay dib u eegis ku sameeyeen iyaga oo la tashanaya saamilayda doorashada habkii liistada xiran oo lagu daray habraaca fasiraadda liistada xiran ee doorashooyinka iyo calaamadaha ururada kala duwan oo ka mid ahaa casharadii ay ka barteen doorashadii hordhaca ahayd si loo yareeyo khaladaadkii dhacay doorashadii hore inaanu soo noqon, dahafurnaanta musharaxiinta iyo codbixiyayaasha, taasoo sababtay in aan wax khaladihi ka dhicin doorashadii 30 degmo. sidoo kale guddigu waxa uu muddo kooban kusoo dhammaystiray qalabka diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka qof iyo cod ee degmooyinka Puntland ka dhacay, iyagoo bilaabay rakibaadooda iyo fariisinta sistamka ama habka diiwaangelinta oo ay bulshada u soo bandhigeen. 6 Oktoobar, guddigu waxa ay kala wareegeen wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland sohdimaha degmooyinka iyo liiska degmo ee maamulada, iyagoo 16 Oktoobarna u kala baxay gobolada iyo degmooyinka Puntland si ay qiimeyn ugu soo sameeyaan goobaha diiwaangelinta iyo seejooyinka codbixinta doorashada oo muddo 16 beri ah kusoo gabagabeeyay. ugu dambeyntiina guddigu waxa uu shaaciyay 17 November 2022 diyaargalow, qalab urursi iyo xalinta murankii sohdimaha ka dhashay kadib. guddigu waxa ay markii ugu horeysay magaalada ganacsiga ee dowladda Puntland ee Boosaaso ka daafureen tababarka shaqaalaha diiwaangelinta oo muddo 3 maalmood ah lagu bareeyay shuruucda,
qalabka iyo anshaxa diiwaangelinta iyadoo ugu dambeyntiina 5 January ka daahfuray magaalada Boosaaso diiwaangelintan oo 401,120 qof lagu diiwaangeliyay oo ahayd 3 waji ayaa si habsami leh ku soo gabagabowday waxaana guddigu ay bilaabeen daabacaadda kaararka dadkii isdiiwaangeliyay 10 Abriil 2023 guddiga kumeel gaarka ah doorashooyinka dawladda Puntland ayaa kulan la yeeshay ururada siyaasadda waxaana loo qabtay qorituur maalmaha ololaha siyaasadda ee ururadu oo ah 3 wareeg oo urur walba 3 maalmood uu ku lahaa oo uu taageerayaashiisa ugu soo bandhigayay waxqabadkiisa iyo himiladiisa 14 Abriil 2023 guddigu waxa uu bilaabay qaybinta kaararka codbixiyaasha doorashooyinka qof iyo cod oo 2 waji ahaa waxaana kaararka codbixinta qaatay 319,507 qof sidoo kale guddigu waxa uu kaar qaybinta dhinac waday shaqooyin kale oo ay ka mid ahaayeen qabashada liisaska musharaxiinta ee golaha deegaanka ansixinta iyo kaarsiinta wakiilada ururada siyaasadda korjoogtada goobaha codbixinta iyo soo dejinta agabka doorashada iyo geynta goobihii loogu talagalay 20 bishii Mayna guddigu waxa uu tababar socday 3 maalmood u furay shaqaalihii maalinta doorashada ee degmooyinka dawladda hoose oo lagu tababaray xeerarka shuruucda agabka iyo anshaxa doorashooyinka iyadoo maalintii ugu dambeysay tababarkana loo dhaariyay si hufan in ay shaqadooda u gutaan ugu dambeyntiina guddigu waxa uu u kala diray goobihii ay ka shaqo gali lahaayeen 25 May waxay ahayd maalin kale oo taariikhi ah oo Puntland ay ka dhacday doorasho qof iyo cod ah oo aan laga soo tabin waxaan ka ahayn roole curyaan dhalinyaro iyo haween u taagan safaf dhaadheer saacado fara badan si ay u helaan xuquuq ay muddo badan naawilayeen ururo kala duwan oo si siman u tirsanaya codadka bulshadu ay siisay shaqaale si hufan u gudanaya waajibkii iyo shaqadii ay dhaarta u mareen iyo xubnaha sare ee TBEC oo kormeerayay shaqadii socotay waxaa jirtay xarunta la socodka xogaha doorashooyinka oo guddigu wixii soo kordha iyo sida howlaha doorashadu ay u socdaanba ay siinayeen daneeyayaasha doorashada Puntland doorashadani waxay meesha ka saartay fikirkii dad badani ay qabeen ee ahayd in Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya waqtiga kan doorasho qof iyo codihii aanay ka dhici karin 24 saac oo isugu jirtay codaynta qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan haweenka dhalinyarada dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo dadka da'da ah tirinta codadkii ay kala heleen ururada siyaasadda ee Puntland iyagoo goob walba ay joogeen wakiilo u kormeerayay sida ay shaqada u wadaan shaqaalaha doorashada ee guddiga iyo xisaabinta xubnaha xildhibaanada golayaasha deegaanka ee ay kala heleen ururadu oo si isku mid ah gudoomiyaasha goobaha doorashada degmooyinka iyo gobolada ee guddigu ay ugu dhawaaqayeen natiijadii hordhaca ahayd ee goob doorasho degmo iyo gobol ugu dambeyn 8 bari kadib sida uu dhigayo xeerka doorashada guddiguna ay ku dhawaaqeen natiijada iyo liiska xildhibaanada golayaasha deegaanka degmooyinka doorashada qof iyo cod ee Puntland ku soo baxay haddaba 10 maalmood oo guddigu ay sugayeen cid ururada siyaasadda ee dood ka qabta natiijada doorashada waxaa cajiib ahayd sida dhammaantood ay ugu qanceen shaqadii guddiga oo aysan wax cabasho ah guddiga u soo gudbin sida xeerka doorashadu dhigayayna waxa ay 12 Juun guddiga natiijada doorashadu oo dhammaystiran ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee dawladda Puntland oo soo ansixisay natiijada rasmiga ah ee doorashada guddiga ayaana ku dhawaaqay 8 xisbi siyaasadeed oo Puntland ay yeelatay iyagoo gacantaag ugu codeeyay waxaana ay u gudbiyeen liiska xubnaha la doortay ee golayaasha deegaanka Puntland wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta ee dawladda Puntland oo u xilsaaran mas'uuliyadda fariisinta golayaasha deegaanka ee qof iyo cod lagu soo doortay waxa ilaahay mahadiisa in waxqabadkaas baaxadda leh uu u qabsoomay guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka Puntland kaas oo dhammaystiray dhammaan shaqooyinkii ay ummadda Puntland ugu xilsaarayeen ka guddi ahaan kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dhammaystirka iyo sameynta shuruucdii doorashada lagu maamulayay diiwaangelinta ururadii siyaasadda waxbaridda iyo wacyigelinta dadweynaha ee doorashooyinka dhisidda kalsoonida bulshada ee ku saabsan qabashada doorashooyinka iyo ka qaybgalkeeda diiwaangelinta muwaadiniinta oo markii ugu horeysay suurta gashay iyadoo qaab casri loo diiwaangeliyay qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka sharciyeynta xisbiyada siyaasadda intaas oo dhan waxay ahaayeen tiirarka waaweyn ee mas'uulka ka ahaayeen guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka dhammaantoodna waxay fuleen iyada oo ay ku xeeraayeen caqabado fara badan oo shaqo ay ka mid yihiin
isku dayo hore fashilmay coronavirus xaalado amni faham yari dadka dhaqaalaha kooban iyo caqabado fara badan oo kaleeto ma ay ahayn shaqo fudud waxay ahayd hirgelinta isbedel taagnaa oo aan suurto gelin guud ahaan Soomaaliya muddo 50 sano ka badan Puntland 15 sano qabiya ah in la xaqiijiyo waxay u baahnayd soo jeed shaqo badan dulqaad iskaashi iyo in looga gudbo wada jir waxaana ilaahay fadligiisa inuu taas nagu galaday oo aan gaaray inaan xaqiijino hadafkaas ka guddi doorasho ahaan guddiga doorashooyinku wuxuu marayaa kumeel gaarka ah guddigii saddexaad anna waxaan ahaa gudoomiyihii shanaad ee guddiga doorashooyinka kumeel gaarka goobjoog u noqday inay la xaqiijiyo hadafkaas waxaan ku gabagabeynayaa inaan u mahad celiyo Allah weyn oo waaxida oo noo suurta geliyay hawshaas inaan u mahad celiyo dhammaan intii nala shaqaysay ee qaybta ka ahayd ay ugu horeeyaan guddigii kumeel gaarka ee saaxiibaday ahaa aan wada shaqaynaynay howlwadeenada doorashooyinka heerarkooda kala duwan heer dhexe heer gobol heer degmo heer goobeed iyo heer kastoo ay yihiin dadkii kala duwanaa ee nala shaqeeyay howlaha kambaniyo teknolojiyadda khubaro caalami iyo mid gudaha kuwa ka shaqeeya gaadiidka bahda amniga oo iyaduna shaqo baaxad la qabatay oo si aadan noola shaqeysay warbaahinta hay'adaha dawladda ee xukuumadda gaar ahaan wasaaradaha kala duwan ee aan wadaagta la ahayn madaxweynaha dawladda Puntland oo siyaasiyan iyo moraliba noo taageeray hay'adaha iyo dawladaha caalamiga ee isgarab taagan nagu siiyay dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca khibradda hay'adaha kala duwan ee maxalliga ah oo ay ku jiraan bulshada rayidka hay'adaha cilmi baarista bahda waxbarashada iyo cid walba oo qayb ka geysatay processkan dhammaantood waan u mahadnaqayaa wuxuu ahaa himilo shacab oo la xaqiijiyay waxaan rajaynaynaa in dadka la doortay ee dadka sidii loo qorsheeyay oo loo doortay bulshada u aamintay ugu adeegaan la helo degmooyin ka qurux badan degmooyinkii hore hay'ad dawladeed oo baahayna ay ka hirgalaan dalka aad u mahadsan